Halkani waa magaalada Meecheley oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxayna dhinaca waqooyi ka jirtaa xarunta gobolka ee Dhuusamareeb qiyaastii 47 kiiloomitir. Magaaladani waa magaalo aasaasantay burburkii dowladda dhexe kadib, balse waa magaalo la tartamaysa magaalooyinka faca weyn ee gobolka. Meecheley waa magaalo soo martay marxalado kala duwan, balse haatan waa magaalo ku tallaabsatay horumaro kala duwan oo dhinacyo badan leh sanadihii u dambeeyay. Haddaynu eegno dhinaca biyaha, magaaladu waxay heshaa biyo ku filan, waxayna leedahay ceel biyood. Sidoo kale magaaladu waxay leedahay koronto, taas oo inta badan joogta kana faa'iideystaan bulshada deegaanku. Dhinaca caafimaadka, haddaynu eegno, magaaladu waxay leedahay cisbitaal weyn oo lagu dhisay iskaa wax u qabso oo si free ah dadka loogu daweeyo. Dhinaca waxbarashada, magaaladu waxay leedahay iskuul hoose dhexe oo si bilaash ah wax looga barto. Meecheley ma ahan magaalo lagu soo koobi karo hal warbixin, balse warbixintan waxaan ku eegaynay dhinacyada aasaasiga ah nolosha bini'aadamka. Waxaa warbixintan idiin soo diyaariyay idinla socodsiinayna anigoo ah Suldaan Maxamed. Waxaa gacan libaax la iga siiyay saaxiibkii qaaliga gudoomiyaha ururka dhalinyarada Ayuub Xuseen. Mar kale ayaan isku soo laaban doonaa anagoo idiin soo diyaarin doona warbixino intaan ka faahfaahsan kana tiro badan oo aan ku soo qaadan doono dhinacyo aad u fara badan. Haba ugu horeyso dhinaca isboortiga. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina.